يا غافل warmooganow hooyada waa hooska aad ku raaxaysanayso oo aad ku nasanayso waa midka awooddaadu ku xoogsamayso hurdadeebaad ku raaxaysanaysaa adigoo ka xanaajiyay oo xumeeyey oo weliba ka hijrooday oo ka tegey hooyadaadu waa iftiinka noloshaada wallaahi haddii aad iftiinka weydo oo uu kaa tago waxaad ku dhex jiraysaa mugdi haddaba haleel oo ka daba tag iftiinka inta uusan kaa tegin oo aadan weynin haddaba weydii dadka waalidkooda waayeen dhibaatada ay ka mareen wallaahi ilmaha qaar fahansana ihsaanka iyo wanaagga ay nagu leeyihiin labada waalidkuna waa u ismoogaysiinayaa ilmahoodu waxay ku sameynayaan wayna istilmaamsiinayaan cadfigooda iyo dhimrintooda waxaa ka mida way noo sabrayaan hooyooyin iyo aabbow naga raalli ahaada wallaahi waxaan ku arkay garoonka ayaan ku arkay nin duqa oo dhabarkiisu soo qalloocday boorsooyinkiisa isaga ayaa wata wiilkiisana waa uu daba socdaa uma aabbayeelayo taleefon BlackBerry ah ayuu kala rogrogayaa waxaan weydiiyey kanima waalidkaagiiba soo aabbaha maaha ninkan ku hor socday boorsooyinka wada ee duqa ah alla hoogeenna ma sidaas ayaan waalidkeenna ku abaalmarinay alla maxay hoogtay saacaddaas waa saacaddaas aadan ku fakaraynin oo aadan samaynaynin wax ixsaan ah oo aadan u shaqaynin iyaga oo aadan u qabanaynin waxa ay u baahan yihiin maxaa ka hoog badan saacaddaasi aad hooyada iyo waalidkaaba aad codka kor ugu qaadayso oo aad ka xanaajinayso ay kaa xanaaqsan yihiin maxaa ka hoog badan saacaddaas oo ka xun maxaa ka hoog badan saacadda ay waalidkaa jeefanayaan iyagoo raalli kaa ahayn ma waxaad u caragelinaysaa wax aan macno lahayn ma waxaad u xumaynaysaa taleefon uusan kuu soo gadin sababtii waxaan macno lahayn miyaad uga xanaajinaysaa u xumaynaysaa ma waxaad uga xanaajinaysaa sababta gaari inuusan kuu keenin uusan kuu soo xaadirin ma waqti yaroo asxaabtaada aad la qaadanayso ayaad uga xanaajinaysaa dhowr shilimaadoo lacaga inuu ku siiyo miyaad u xumaynaysaa adduunyada yuu u kulminayaa adiga maahan miya wuxuu u dadaalayo ee uu u daalayo adiga maahan miya qofka uu dhibaatada u wajahayo soo adiga maaha meeqa ayuu daalay meeqa ayuu dhibtooday adiga dartaa meeqa ayuu u dhididay meeqa ayuu u dhibtooday adiga dartaa meeqa ayuu u raadiyey oo ugu hoogay shaqo adiga dartaa xasuuso wiilkaygiyow xasuuso waalidkaagu inuu ku jecel yahay jacayl saa'id ah aad ayuu kuu jecel yahay kalgacayl aad u xoogan ayuu kuu qabaa maxaa yeelay waa waalidka waxaa laga yaabaa waxyaabo inaad ka dalbato laakiinse uu kaa dibdhigo uusan hore kaa siin waxaadan ogeyn ayuu og yahay waxaa laga yaabaa in dayn xoogan lagu leeyahay uu awoodi la'yahay waxa aad ka dalbatay ama ay haystaan waxyaabo ka waaweyn waxyaabaha adiga aad ku fakarayso rabbi wuu xaaraantinimeeyey in la xumeeyo labada waalid xitaa in lagu yiraahdo kelimada uf qulubta dadka qaar waxaa ka mida kuwa aad u adag dhagaxa kuwa ka adag war waalidka ha la ogaado sidee xaalkoodu noqonayaa markay weynaadaan markay da'doodu aad u weynaato sidee buu xaalkoodu noqonayaa